libaaxan wuxuu la kulmay ninkii lahaa sanado badan kadib halka ragganba ayba u muuqdaan inay waqti fiican qaadanayaan. kuwaan waa waxyaalo cajiib ah oo ku saabsan xayawaanaadka. assalaamu calaykum asxaabay, ku soo dhawaada muuqaalkeena YouTube. maanta iyo muuqaal innaban caadi ahayn aan u gudagalnahay hayaabina. eeygan malaha wuu daalay wuxuuna korka ka fuulay faraskan, waxaadba u moodaa inuu wadaba allah. marka aad rabtid xoogaa yar inaad keli ahaato balse maroodigaaga caadsi intuu dareemay adiga uun ku sii jiitay allah. kadib muddo 7 sano ah way kala maqnaayeen. gooshan waxay xasuusatay ninkii badbaadiyay markii cagaburuurta ahayd. waa dareen cajiib runtii, waxaana ka muuqata naxariis iyo xiise aad u dheer. loodu ma ahan xayawaanka ugu caqliga badan dhanka beerta oo waxay daaqadaha ku khaldaan albaabka. ninkan wuxuu rabay inuu qalajistan ee madaxa wax ugu jiraan inuu sawir ka qaado, balse orod ayaa ka dhacay. ani ahaan daayeerkan aad igu yaabiyey walle sida jawiga degan loogu jiro. malaha xarif ayuu ku yahay darawalnimada. cajaa'ib sheekhow. dabcan bisadu waxay kala mid yihiin bani aadamka markay wax u suurtoobi waayaan inay wareeraan. haddaba iskudayo badan ee samaysay bisadan maanta uma hirgelin qorshaheeda. gabadhan eygeeda ayaa jawiga u beddelaba intay ku mashquulsaneed albaabka, isagana meel kale u caddeed. nin meel u caddahay meel ka madow. sida la ogyahay DNA-ga bini'aadamka ayaa daayeerka noociisa loo yaqaano chimpanzee waxaa u dhexeeya baraka keliya oo ah 200%, taasoo kuwa caddaynaysa qaabka ciyaarta u xakameynayo, isagoona soo bandhigay ciyaar cajiiba runtii. dabcan kama dhigna haddii xaasidu yihiin xayawaano aad u khatar badan inaysan mararka qaar aysan bashaalin. cajaa'ib sheekho. xayawaankan dubkaahi ayaa cunto loo soo tuuray oo wuu haleelay, laakiin midka ka gadaaleeya ayaa yara xanaaqay. dabcan maxaa lii siin waayey ayayay. markay ogaatay shimbirtan balbooladahi inay u dhex gashay shabeelkan ayayba samaysay wax cajiiba runtii ooba ku wareerisayba shabeelkii, iyadoona marba dhinac ka tusaysa allah. ninkan ayaa kulun yar ku tuuraya biyaha, isagoona sacbinaya ayuu kulunkii dib ugu soo laabanaya. malaha kulmaysadhan uma baahna ninkan. cajaa'ib sheekhow. dubkan ayaa si cajiib loo qabanaya cuntada loo soo tuurayo oo midnaba ma seegayo, halka dadka ayaba farxad yareereen ka qaadayaan allah. way adag tahay inaad maalin kasta aragtid bisad si inamaan caadihin ugu soo daadeganaysa xariga. walle nimaan yaabin ayaa yidhi waan yaabay. meel kastoo aad jeceshahay waad ku jaasi kartaa, taas waa adiga dooqaaga, laakiin inaad ku duljaasta xayawaanka nibiriga dushiisa waa mid aad u xun. taas aniga ma xukumin. xayawaankan afka qalaad loogu yeero sugar gliderers waa mid leh tababar aad u sareeya, iyagoona ku soo booday gacantaada si cajiib leh oo xitaa haddii aad macsalaaamisid armi kugu soo laabtaan. cajaa'ib sheekhow. gabadhan ayaa bilowday inay cunto askriimteeda, balse waxaa meel kore ka arkay boqorka haada ee gorgorka. siduu u soo xawaareynayay ayuuba ka dafayba. cabsi waayo wallaahi. eeygan ayaa muujiyey inuu ku fiican yahay ciyaarta laliska, isagoona si weyn uga qayb qaatay ciyaarta. dabcan waa hubka qarsoonay ciyaartan. cajaa'ib sheekhow. faraskan ayaa ku dhex lugeynaya gudaha xarunta booliiska, isagoona weliba xarakeynaya. cajaa'ib sheekhow. malaha shaqaraadis weeye allah. markii la gaaray wakhtigii uu qashinka soo tuuri lahaa ayaa wax kasta isbedeleen oo meeshii ayuu isku xidhaba. cajaa'ib sheekhow. kalluunkan lagu magacaabo stringrey bal arag marka la juqeeyo sida quruxda badan ee u dhul cadeynayo, balse cid kasta kuma duqumaysan kartid dhul cadeyntaas. waan ogahay sida aad u khatar badan tahay. ninkan wuxuu rabaa inuu habsiyo dubkan. dabcan inuu waxyeelo geysto diyaar uma ahan. markaas ayuu qof kasta go'aansaday inuu u dhawaado xayawaankan. cajaa'ib sheekhow. gabadhan geegeysay cuntada bisada ayaa albaabkan gargaraacday. malaha waxay filaysay inuu qof ka furayo, laakiin waxaba ka furayba daanyeer. keen cuntada lacagtaho allah. markaad aragtid daayeerka noociisa loo yaqaano chimpanzee oo halkan fadhiya weliba mushaaxaya oo ku yaalana wata koofiyad inabana caadihin sita iyo welibana caabitaan wax kaleesan oo ka samaysan cuntada uu jecel yahay ee mooska ee uu cabayo. waxbaa isku dul saaran daayeerkan. waxaan arki jiray koox eeya ah oo barafka dushiisa lagu maro micnaha gaadiid ahaan, laakiin in shabeel lagu maro waa mid kaloo cajiiba. dabcan bahda bisada oo dhan waxay ka helaan in la jujuqeeyo ama la xanaaqteeyo allah. daayeerkan kama waqasnaba neefkan loodahi ayuuba dushiisa fuulayba, si degan ayuuba ugu dul fadhiyaa, halka neefkan loodahina aysan wax dhibaato isku qabin allah. sida aad halkan ka aragtid ninkan si cajiib loogu daadinaya boonboonadan raashinka. siday ugu soo xamuumayaan ayaaba cajiib ah. kaamiradan ayaa qabatay doofaarkan oo gurigan soo galay, isagoo dhagal la qabto aan lahayn ayuuba albaabkii soo jiirayba. xayawaanku ma ilaaway cidda u muujisa naxariis iyo dareen gooni ah oo daayeerkan chimpanzee ahi ayaa markuu la kulmay dadkii carruurnimadiisa uu la soo koray ayuuba farxad daraaddeed boodbood iyo baayaqalin ka bixi waayeba allah. dabcan gabadhan waxay u dhowdahay inay ku guulaysto tartanka orodka, balse waxaa si lama filaana gadaal ka soo orday eeygan oo iyadaba dhaafayba. cajaa'ib sheekhow. cagaburuurtan ayaa u soo cararaya dhankaasi gabadhan oo iyadaaba soo korisayba oo soo xanaanaysaba.
dabcan xiisaha ay u qabaan ayaa ah mid aan la soo koobi karin waxayna ku boobeen gabadhii dhunkasho iyo xabadgelin waa darin cajiib runtii ilaahu nimaan wax weyn ha cadaabin gabadha alaabta wadata oo u soo socota gaarigan ayaaba gaariga shirkiis waxa saaranba xayawaanka dubkahay fur istiri wuu ka soo boodayba allah faka taxayo tiriba dhammaanteen waan jecelnahay inaan haysano kooxna ilaalisa oo markasta ammaankiina sugta laga yaabay dhammaantiin inaad u baahan tihiin bisadan tababarkeedu yahay mid aad u sareeya xayawaankan dubkahay ayaa albaabka iska furayaba baay malaha argoos ayuu soo laabtayba ajaa'ib shooqow malaha eegan ayaa eegaya sida loo isticmaalo wadada isagoona qaarka dambe kula jira mootada ninkan aadka ugu takhasusay qabashada masaska ayaa ah inuu ogaado waa maxay sababta indhaha ugu qaadayo ma sidaan u khatar badan xitaa ha ahaatay libraqsiyo allah xayawaankani ayaa damacay inuu ka gudbo wadada laakiin dhibka jira ayaa ah inuusan gaari karin inuu fuulo gidaarkan xalka ugu dhow ayaa noqday in madaxa lagu dhago oo kor loo soo qaado gacmo wadajir ay wax ku gooyaan dubkan ayaa isku dayay inuu gaarigan Lamborghini ahi uu ka galo dhanka daaqada laakiin daaqadii dhameedba ayuu soo jebiyayba si wacan uguma hirgelin allah dhammaantiin waxaan ognahay in laga fogaado xayawaanada khatarta leh mararka qaar waxaa wanaagsan inaad deganaansho muujiso mararka qaarna aad orodo mid ka mid ah wadooyinka miyiga ee dalka China ninkan beeraleyda ah wuxuu si isbuucile u daaqsin geeyaa in ka badan 300 oo bolonboolo dabcan uu ku faraxsay shaqadiisa laakiin wadada ayaa noqotay mid jaam ah tani waa mid ka mid ah mararka qaar ay maskaxda ku soo dhacaan su'aalo ka badan jawaabaha su'aal ahaan maxay kooxdan doofaaraha ee waqtiga dambe ee habeenkii wadada u marayaan yaa si hogaaminaya ajaa'ib sheekhow raxantan shabeelka ayaa ceersanay gaarigan baska dabcan ma ahan maanta cuntadoodii maalinlaha ahayd bal un qiyaas dareenka ay dareemayaan dadka ku jira baskan allah waa quudaa jirin qoryo guro qoyskan ayaa gaariga dhexdiisa ka daawanaya raxantan libaaxahi waana beerta xayawaanaadka ee safari ee dalka South Africa haddaba gooshan ayaa gaariga dhinaciisa u soo dhaqaaqday iyadoona furtay daaqada gaariga ajaa'ib sheekhow nasiib wanaag mid ka mid rakaabka ay u suurta gashay inuu daaqada xiro waqtigii ku haboonaa sida caadiga ah maalmaha qabowga daran uu jiro dadku waxa adeegsan kooxo eeyo ah oo jiidaya oo geenayana meesha u baahan yihiin haddaba eeygan ayaa naftiisa ku sameeyay intuu fuulay ayuu sii raacayba malaha waa daqiiqada uu xasuusanayo eeygaas ninkan khatar ayuu galay oo waxa soo weeraray libax badeed laakiin maanta ma ahayn maalintiisii mootoolahan oo halkan iska fadhiya ayaa waxa hal mar dhankiisa u soo orday eeygan kaasoo ninkii ku dul ceersaday hareeraha mootada bisadan kama waqasnaba oo waxay hogaaminaysaa kooxdan laxahay malaha waxa laga yaabaa inay u maleeyaan inay tahay lax iyaga la mid ah ama ay ka heleenba dufkeeda lacag in la tiriyo waa shaqo yara dhib badan laakiin dhibkaas dareemi maysid haddii aad haysato daanyeer barta kuu sii leefaya taasoo kuu fududaynaysa inaad lacagta tiriso kaliya bini'aadamku wax sama siiyaan ee xitaa xayawaanku uu isiiya daanyeerka shimbaasiga ayaa la wadaagay didiinkan tufaaxi u cunayay ninkan oo halkan dab ku shitay ayaa halkan si degan ugu cunteynaya balse laxdan iyo neeshaydo gaajisan ayaa cuntada ka qaatay intii iyagu ku maqana ayaa wadameerkan intii kale sii qaatay kaaliga qaado kaasi allah eeygan jawi kale ayuu ku jira shirka hore ayaa la firisiyay eerti soo cabaya kama waqasnaba adaa daalay walaalka haddii aad mar uun rabtid dheerigelin ka hor ciyaarta bisadan ayaad u baahan tahay oo qof kasta ay shanta u taagaysaa micnaha way salaamaysaa bisadan halka saaran bal sida ay mootoolaha urida arag waxaad u moodaysaa inay si daba u riday ajaa'ib sheekhow